Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada maanta waxaan baranaynaa sidee technical analysis loo sameeyaa, sida telefiga loo fiiriyaa, sida jaarka koonka aad rabtid inaad ka tiri karaysid ama inuu entry ku siiyo aad rabtid oo meesha ka gali aad rabtid inuu ku yimaado oo sida halkan oo kale. Hadda waxaan joognaa maanta ayaan joognaa. Hadda halkan amal waa ka qaadan kartaa haddii koonkan hadda meeshii batankiisa ugu dambeeyay waa la keenay oo sida loo soo daadiyay halkan laga soo daadiyay ilaa halkan uu joogay 2021 bishii December adiga ma dhow waa 2 sano ka hor waaye halkan 2024 waa bilihii waaye oo inta soo sameynay waaye koonkan. Marka haddaad rabtid inaad gashid entry-ga waa inaad heshaa oo hadhowna meelaha amal ugu degto si aad ugu degto. Hadduu halkan ugu gaaro inaad ka degto looga baahan yahay koonka inaad iska haysid maaha. Marka haddii aad muddo dheer haysid marka waa u baahan tahay si aad lacagta u badbaadisid entry inaad heshid kow horta muhiim waaye. Koonka hadduu 25% dhaco kadib uu kaadi adiga hadduu ku darsato 25 kale ku darso markaas amal DC waa laga sameyn karaa entry-ga. Marka hadda saa oo kale hadduu ku yimaado entry-gaaga hadda waa laga yaabaa inuu saa intuu kala wareego adiga oo inuu halkaa meelaha gaaro 3 oo saas oo kale inuu gaaro laga yaabaa. Marka hadduu halka amalka u gaaro iskaga deg adiga faa'iidada halka haysta waa ka soo raacday intaana ka soo raacday waa la iskaga degaa. Marka sidee telefiga marka kow muhiimada ani kuwa aad rabtid inaad entry ka heshid hadhow haddii laga yaabaa inuu koonkan isagoo halkaas marayo aad soo fuushid oo dhakada ka fuushid kadib waa lagu soo daadinayaa waa kaa intaana ma jibin halkan uu daatay intaan ma jibin uu diidayaa raja adiga hoos u socda. Marka inta oo kale hadda waa laga qaadan karaa aniga hadda saas leeyahay. Marka adiga haddii aad technical-ka aad isku fiican tihiin waa gali kartaa oo entry-ga waa ka qaadan kartaa laakiin kulama talinayo inaad koon dhakada ka fuushid. Kow horta waa inaad waxaa u baahan tahay inaad iska talisid ani kuwa aad rabtid inaad sidee u talin kartaa. Marka karabtaan tagaynaa marka koonka aad rabtid inaad ka tiri aad rabtid inaad fuushid sidoo kale aan fiirinaynaa sidoo oo kale hadduu waa maanta lagu waayay hadda waxaa laga yaabaa in hadda halkan oo kale entry waaye ka bixisa. Marka dheeriga fiirina weekly haddana saa u fiirino weekly weli hoos soo socda adiga sifaan waxaa laga yaabaa in 50 sol USDT miya sol USDT taabo sol USDT hadda waxaa maraysa 87 ay maraysa bareeskeeda. Hadda weekly waa kan dhaliga mihir waa ka dhiman 16 saacadood ka dhiman iyo 22 daqiiqo. Hadda waa laga yaabaa 84 adiga 60 amal kan hadda rejection waa meeshii support yaalo waa oo lowgan waa in la gaado lowgan haddii meelaha soo dawato 69 lowga haddaan fiirino lowga hadday gaarto 69 halkan intaa hadda weli ma imaan waa ka dhiman 60 saacadood 4 hour haddaan fiirino weli hoos ay la socdaa marka kor ma jiro adiga kan dhali waa ka oo lowgiisa waa in 67 oo hadduu la jibin laga yaabaa in la gaado.
marka adiga waa tagin kartaa iska fiirin kartaa coinka haddii aad rabtid inaad entry fee ka heshay hadda qofkii halkan kasoo koray ama khasaaro ku jira oo la daatay oo hoos u la aaday laakiin haddii aad fiican lahayd ama inta ama hadda hag aadan lahayd ilaa halkan markuu gaaro ka degi lahayd adiga faa'iido waa ka heli lahayd marka waxaa muhiim ah inaad ogaato entry-ga horta muhiim waaye kow coinka markaa rabtid inaad gashid waa inuu entry-ga ku yimaadaa oo si aad hodhow ugu baxdid oo hadduu meel fiican ku gaaro si aad ugu degtid marka technical-ka waa muhiim inaad jaartiga si fiican iska akhrido weekligii 4 hawri 15 30 5 second marka inaad ka tegaysid labadu waa muhiim inaad trade spot ahaan u trade gelisid ama future ahaan u trade gelisid labadu waa ka fiirin kartaa marka coinka camal ma dhaqaaqaan kuwa waaweyn waaye oo marketka inta badan ma dhaqaaqaan marka coinka wax jira yar yar oo iska fudud oo halkan albeebe 5 second 5 second 15 second halkan albeebe hoos la aaday kor la aaday marka haddaa rabtid inaad trade tahay spotkan waa u gali kartaa oo Binance jira ama Gedayo ama Bybit mid aad rabtid waa ka trade gali kartaa oo spot ahaan ama future ahaan waa ka trade kartaa marka sidee loogu trade garayaa waan fiirinaynaa marka Bybit oo kale aan fiirinaynaa market cap-ka marka waxaan fiirinaynaa market cap-ka Bybit oo kale haddaa rabtid inaad ka trade galisid oo ku furan yahay halkan ka fadhiisid halkan ka fiirinaysaa inay ku rabtid ha qoraysaa marka future ahaan waa ogtaa sal waata hadda coin oo kale waa high low market cap waaye marka hadda kan oo kale aan fiirinaynaa oo trade view aadaynaa maxaa horaa bil LL waa ka weekliga hadda doorata oo maray 30 waa la gareynay halkan ka soo laabtay waa weekly waaye mar 4 hour daily aan tagno daily waa kan dhalay rajada hoos loo soo aaday marka adiga haddaad trade tahay oo future ku jirtid halkan oo kale haddaa ka leedahay halkan ku gaaro faa'iido fiican oo sal lahayd wana war madaa fiirinayna rajaysiga la soo siirnayaa hadda kor waaye marka 4 hour haddaan fiirino isuma jeedaan oo sal waaye 1 hour markaa fiirisin waa buy 50 markaa fiirisid waa sal day waa dhiga haddaa fiirino 4 hour maanta waa kaliya 4 hour iyo 15 iyo daily bas buy inta kale waa sal waaye marka entry hadda ma jiro haddaa fiirin marka waa kuu muuqanaysaa in coinka in la daadiyo oo la rabo oo exchange inta midaan lacag ku gurtaan oo weelas fiican soo galo sal